guud ahaanba geyiga Soomaalida waxaa ka jiray waayihii dambe abaara baasan waase lagu kala darnaa deegaanada Somaliland siiba gobolada qaar waxa ay saameysay dad iyo duunyaba wixii ku noolaa rabbi intooda badani waa uu ka soo furtay oo waxa uu ku manaystay nimcadiisa roobaad sayax iyo garagara jirta awgeed uumiyihii waxaa soo wajahay diihaal iyo gaajo taasina waxa ay sababtay inaanay kala joogsanin gurmadkii abaaraha ee dadka wax loogu gaarsiinayay maanta ayay ahayd markii magaalada Burco shiraaqa loogu giijiyay kuraanba bixiyeen xubno kamid ah wasiirada xukuumadda Somaliland guddoonka gobolka Togdheer iyo Sheekh Maxamed Aadan oo kamid ah guddida abaaraha Somaliland gawaadhi sida raashinka noocyadiisa kala duwan loona horkacayay gobolada bariga Somaliland si loo gaarsiiyo dadka abaaruhu waxyeelada baahsan soo gaarsiiyeen ee ku dhaqan deegaanadaasi imika afarteeda gobol ee la qaybinayo ee bariga ah wax xataa aan ka maqlo dareen ma jiro imikana waan ka gudoomaynaa oo markii saddexaad ee nala siiyo raashin iyo biyo ay noqonayso waan ka gudoomaynaa maanta waanu soo dhaweynaynaa baabuurtii iyo intii noo sidayna waan kala wareegi doonaa qayb kamid ah waxaan ugu talagalay 10,000 oo qoys inaanu qaybino raashinka kala duwan ee aynu bixin jirnayna la siiyo 10kaas waxaanu ugu talagalay oo halkan imanka inoo jooga 6,500 oo loo qaybinayo gobolada 3,500 in ku dhowna gobolka Sanaag ayaa loo rari doonaa insha Allah ta'ala marka la isku daro waxay noqon doontaa 23,000 oo qoys 125 ayaa guddida taakulaynta abaaruhu ay soo gaarsiisay gobolka waxa weeye gobolada bariga guddidu 3 arrimood ayay jeceshahay inay ka qabato bariga mid waa raashinka aad arkaysaan midna dhulka aanin raxmadu helin in biyo dhaamis la gaadho inkastoo raxmadii galbeedkay ku badan tahay imaka meelo ay ku daaday jirto laakiin waxa jira meelo runtii doora oo ay ka socoto biyo dhaamiska isaga waanu sii bilownay waa uu ka horeeyay Allahumma salli ala Muhammad raashinka uu ka horeeyay waxa uu hadda ka socdaa gobolka Daadmareed waxa uu ka socdaa gobolka Saraar waxa uu ka socdaa gobolka Sanaag waxa isagana aanu bilaabi doonaa gobolka Sool uu ka socdaa waxaanu bilaabi doonaa buuhoodle insha Allah ta'ala tahay guddiyadii taakulaynta abaaraha oo gobolada laga sameeyay baa sugaysa in ay sida ugu nabadgelyo tagto baan jecelahay waliba waa la soconayaa ilaa inta ay ka guriga tagayso taas waa mucaawanadii iyo wixii markaa la qaybiyey runtii ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa dadka astura ilaahay deeq waasaca baynu ilaahay weydiisanay عسى تذكر أسطورته عسى أنا ومدة كلا قريسة تاسع ويديسني إلهي سبحانه وتعالى وحكله ورنتي مهمة جدد وحي كوسا ليسنتاي أما يكون شقينيسا هذا بحالك يكون أركان باهيني كشف قلبي وحي يقول الرئيسي باهينة ترتي ما أنت نهالك وحي يقول الرئيسي باهينة ترتي وحي نكتر جميسا جدد هذا باهيدا يدرينك شعبك إلى النوشاي سيدا أوجد أي هالكن أوتيمي أو ما أنت أيوة قدرت الروب أي كشقيسو شغل يدنا واتاب بلابن برسام كجوبك السرار علي محمد فرح جديد بان لو ريجنا ما أنت أي نوع يجوبك كسول أو أنا وكيلوجا هاي سول أو طبق قاري أو أيه أو راشين كيا أيه لو ريجنا ورنا واحد نقوله وريجنا بيه أي سوق جالسين تقولين تبارو وأنا اللي قيبي بيه هو الناس لو جوها بومبار إن شاء الله وجود وقيبي طنطا وبرواقة آذن محمد تلفزيون عالمي جاي الصومالي كيبل مقالة برعو